iska horimaada khasaare sababay ayaa ciidamo ka wada tirsan milatariga waxa uu ku dhex maray deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayadoona maamulka deegaanka Janaale uu ka hadlay arintaasi waxa sababay wariyahana Shabeellada Hoose inooga soo warama Saciid Ra'iis Cali ayaa warkan nooga soo diray afgooye iska horimaadkan oo wada dhaxay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa milatariga oo ku sugan deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa timid kadib markii ciidanku ay isku qabteen isbaarada bartamaha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ciidanka ayaa isafgarowaa kadib waxaa dhexmartay rasaas hoogan iyadoo laga askari oo ka tirsan ciidamada milatariga dowladda Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Janaale ay ku dhaawacmeen sida xafiis wareedka reediyo kulmiye gobolka Shabeellada Hoose uu xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka Janaale ugu magacaaban dowladda Soomaaliya Xasan Arbaco isbaan baawur isbaarnay bilaw kaliya hadda mawjida أساس ما وحيا لما قفا دعوانته إذن كلا ويا ناس أقولنا إذن كذي سحوا فعل كذا ما هذا واحد ما تبجيل ولا خلنا خلينا نكتليه وحبا قم بعجين ونكسيري شيء هذا عبد وجوك دار iskaarimaad kan ayaa weli waxaana ka hadlin taliska ciidanka milatariga ee gobolka Shabeellada Hoose iyadoo muddooyinka u dambeeyay israasaynta u dhaxaysa ciidamada milatariga dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose degmooyinkiisa kala duwan ay soo laalaabaneysay Saciid Ra'iis